Assalaamu calaykum Ramadaan mubaarak dhammaan kusoo dhawaada channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Meema Cooking and Sweeties. waa walaashin Meema oo idin wado muuqaal cusub iyo maraq aad iyo aad u macaan badan. waa maraq ari loogu talagalay in la cabo, wixii aad rabtid waa ku cuni kartaa, caadi ahaan waa u cabi kartaa. saliida waa laga ilaaliyay, waxyaabo kale laguma darin sida baradho iyo waxyaabaha laguma darin, kaliya waxaa lagu daray carfiskaas oo loogu talagalay inuu dhadhan siiyo. asxaabta qaaliga maraqaanit waxaa ugu talagalay oo u sameystay maadaama ramadaankan uu xoogaa hergab iska jiro. maasha Allah, dhadhan ahaan aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. annaga hadii aan Soomaali nahay waxyaabaha aan hergab ku isticmaalno maraqa ayaa kamid ah, siiba maraq ariga. halkan waxaa igu diyaarsan hilib arigaaniti waxa uu ka kooban yahay 1 kiilo oo hilib ah waaye. waxaa loogu talagalay in la kariyo oo aan maraq ahaan aan u sameeyo, idinkana aan idin la wadaago maadaama wax walba aan sameynayo aan idin soo gudbinayo waxyaabihii aan ka gaaro oo suurto gasho. maadaama ramadaanka la iska mashquul badan yahay, waxyaabaha duubista badanaane laga mashquulayo, marka taasna karaali noqda. hilib arigeena waxa ugu talagalnay maraq inaan ka sameysano. waxyaabaha aan rabo inaan ku daro kama mid ahan inaan baradho iyo waxyaabaha aan ku daro, kaliya waxa ugu talagalay waxyaabaha carfiska ah inaan ku daro, sida hadii aan lahayd basal yar iyo toon iyo filfisha oo u fiican maraqa, hadii aan lahayd heelka oo carfinayo, waxyaabahaaseti iyo kabsarta, liin dhanaanta, hadii aan lahayd jubbaha. waxyaabaha ayaan rabnaa inaan ku darno maraqeena, marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago qaabka u sameynayo. soo dhawaada. waa kan asxaabta qaaliga, halkan waxaa igu diyaarsan basal iyo 3 xabo toon ah oo ugu talagalay inaan ku carfiyo hilibkeena. waxay ii siinayaan caraf fiican ay ii siinayaan. waa ka basasha toontii waan soo diyaarsaday. halkan waxaa igu diyaarsan weelkii ama digsigii aan rabo inaan ku kariyo hilib arigeena. waa kana waxaa ku hor bilaabayaa oo aan ku shubayaa marka hore basasha ayaan rabaa inaan ku shubo oo aan salka u dhigo weelka, maadaama wax saliid ah aan ku dareynin maraqaaniti. wax saliid ah waa ka mamnuuc. waa ka hilibka ayaan sidaa u saarayaa, waxa ka hooseeyo waxa waaye basashi waaye, waxa ka hooseeyo hilibka. markii aan sidaa u saaro toontiina waxaan rabaa in ayadana kor aan uga daro, kadibna aan biyo yar korka uga shubo. sida ujeedaan hadeer waxaan diyaarinayaa hilibkii oo aan saarayaa digsigeeni. idin sheegay toontiina waa kan oo hadeer ayaan rabaa inaan ku daro. waa ka sida ujeedaan toontii oo inoo shiidan ayaan ku daray. waxaan kaloo rabaa inaan idin tuso dabka inaan u gaabiyay, waayo wax walba markaa karinaysid dabka iska gaabi. sida ujeedaana waa ka hadeerna dabkii ayaan shiday oo kuukarka waana ka gaabiyay. asxaabta qaaliga waxaa rabaa inaan ku daro biyo yar oo diiran oo ugu talagalay inaan ku yara kariyo hilibkeena, kadib ayaan gadaal ka biyeynaya. laakiin wax yar oo waxaan rabaa inaan ku kariyo, asagaa biyo dhalaya, asagaa karsamaya, asagaa bislaanaya, kadibna toos ayaan rabaa inaan u biyeyo insha Allah. waa ka waa yara dabool, waxaa rabaa inuu yara karo oo yara bislaado ayaa rabaa. sababta aan saliida ugu dareenina waxay tahay hilib ariga asaga ayaa saliid dhalayo, maxaa yeelay hilibkiisa hilib cadiin ayaa ku jiro. waa fahamteen oo maleena asxaabta qaaliga. halkan waxaa igu diyaarsan 1 xabo liin dhanaan ah iyo qaando filfil ah, qaando heel ah iyo jubba ah, iyo sidoo kale qaando bariis miceeye ah, asan waa sida jubbihii oo kale. waa ka noocaas waaye. waxaa ugu talagalay inaan ku carfiyo jubbaheeni iyo maraqa bariis miceeyehina ayaan isku dareynaa. sidoo kale waxyaabahan oo dhan korka ayaan rabaa inaan ugu daro oo heelka iyo filfisha ka kooban iyo liin dhanaanta ah. caraf ayay ii siinayaan, dhadhanna way ii siinayaan. adina waa ka heli doontaa hadii aad ku darsatid. anna mar walba waxaan rabaa, waxaan jeclaa inaan ku darsado waana isticmaalaa. marka waa ka hadeerna waxaan rabaa inaan korka uga daro hilibkeeni oo soo yara karay. sida ujeedeenba waa kana wuu yara bislaaday hilibkeeni. biseel ayaa ku socdo hadeertaan. biseelkiisa waxaa la rabaa inuu noqdo zaaid inuu bislaado loogu talagalay. biyaha daaya oo yara diirna ayaa kusii yara daray. intaasna waxaa waa inuu sii yara bislaado ayaan rabaa weli. waa ka waxyaabihii aan diyaar oo filfish iyo heelka iyo bariis miceeyihii, jubbihii iyo liin dhanaantii
ayaan korka uga darayaa sida hadda ku daray oo kale. Waxa kaliya oo ii harsan in liintii aan ku yara miiro oo miruhii ayaan ka bixinayaa kadibna waxaan rabaa inaan ku miiro liinta ayadan dhadhan ayay siinaysaa maraq markii aad karsanayso sidoo kale. haddana sida u jeedaanba waa kana liinteeni ayaan korka uga daraynaa maraqeeni aan karsanaynay dhadhan ayay siinaysaa. horna waan kuugu sheegay haddii aad rabto inaad maraq karsato liinta filfisha sidoo kale hilka oo caraf kuu siinaa filfisha oo kuleel yar kuu siinayso toonta iyo basashana way ku carfinayaan ku darso. kabsarta ayaa iga dhiman laakiin kabsarta gadaal marka uu kasoo bislaado maraqeena ayaan korka uga darayaa ayadana qurux ayay ii siinaysaa carafna way ii siinaysaa kabsarta. hadeertaana waxyaabihii aan ugu talagalay inaan ku daro oo aan ku kariyo waa kana waana ku daray. hadeerna waxaan rabaa inaan daboolo digsigeeni oo maraqa aan ku karinaynay waa ka waan daboolay asxaabta qaaliga sida u jeedaanba wuu ku sii karayaa wayna isdhexgalayaan marka ay ku karaan waxyaabahaneeti. waxaan rabaa waxyar kadib waan biyeynayaa markii aan biyey ayaa inoo balana maadaama hilibkeeni uu bislaaday hadeer sidaan idiin sheegay. waa kana hilibkeeni oo aan soo biyeeyay sida ujeediin kabsartii ayaan korka uga darayaa. kabsartan waxaa idiin sheegay caraf iyo waxay ii siinaysaa muuqaal qurxoon ayay ii siinaysaa asxaabta qaaliga. waxaan rabaa in aan xasuusiyo markii aan biyeynayo hilibka ma aana idin tusinin waan ka yara mashquulay marka waa ka hadeertaan waan soo biyeeyay hilibkeeni oo maraqi aan ka rabnay oo aan ka dhiganaynay kabsartiina waan ku darsanay oo caraf ayay noo siinaysay qurux ayay noo siinaysay waxyar ayaan asna u sugaynaa isku carfaano. waa ka daboolnay waa ka hadeerna daboolkii ayaan ka qaadnay hilibkeeni oo soo yara karaayo dabka waana zaaid uga gaabiyey sida u jeedaan. waa ka wax ka waaye karitaan kale uma dhino kaliya waxa waaye cunis ayaa u dhiman in laga dajiyo waayo biseel wuxuu noqday zaaid ah. inta daqiiqo oo aan ku kariyeyna waxa waaye ilaa iyo 35 daqiiqo adeena waxa hadii aad rabtid waa sidaas oo kale ku karsan kartaa. hilib ariga aan ahaanteeda wuxuu la fiican yahay markii zaaid loo bisleeyo waayo maraq ayaa ka dhiganaysa hilibkana waa cunaysa Soomaha. marka waa ka asxaabta qaaliga hadeerna waan daboolay wax yar kadib waan ka daminayaa dabka. waa ka anigoo dabkeeni ka damiyay maraqeeni aan karsanaynay asxaabteeda qaaliga. waa ka maraqeeni oo maasha Allah qurux ku soo baxay kabsartiina sida idin sheegay ayadan carafna way siinaysaa quruxinna way siinaysaa. wax marka waxa ugu wanaagsan wax walba oo indhaha u fiican uurkana way deeqayaan Soomahan. sida u jeedaana waa kana maraqeeni oo diyaarsan maraqan waxa loogu talagalay cabis ayaa loogu talagalay saliidna ma aanan ku karinin waayo hilib ariga asaga ayaa saliid dalay sida hore idin kuugu sheegayba. wax baradhana ma lagu darin oo uma baahna waayo maraqaaniiti asaga iskaga filan wax walbo. sida u jeedana waa ka maraqeen waa bisee waan soo guraaya weelkii aan rabo inaan ku guro ama baaquligeeni yaraa qayb yar ayaan ku soo guranaynaa. sida u jeedaanba waa kana halkan ayaan ku soo shubanaynaa maraqeeni waa kan maraqeeni waan ku soo shubay sida u jeedana sida ay ku soo baxay qurux ahaan basal yar ayaan kor ka saaray oo xoogaa ugu talagalay inay qurxiso. wax walba markii aad karinaysid ama markii aad dubaysid wax walba soo bandhigad ay leeyihiin. cuntada waxa waaye qaab loo soo bandhiga ayaa jirto iyo qaab loo kariyo. marka deertaan basashan waxa waaye soo bandhigadeena ayay kamid tahay sida idin sheegayba. maraqeeniina waxa waaye cabis ayaa loogu talagalay dadka hargabka haayo oo kale aad iyo aad ay ugu fiican yahay maraq ariga. anagana dad Soomaaliyeed waa cabnaa Soomaan taasna waxa waaye mid oo iska qarsan maahan waa mid iska cad oo banaanka taalo. marka asxaabta qaaliga oo idin salaamay maraqeeniina halka ayaan ku soo dhameeyay aad u mahadsantahay. channelka subscribe saar like waxay ga caawinayno dad badan gaar share asxaabtaada la wadaag fariin iyo reeb mar kale soo dhawaada qaybta commentiga.